السلام عليكم. نبتقليو كركينا ها هاتو ولكن سلمان من شابي وما أنت دي سو قدبينيو قصة آدو قيمة بدن ورنتي كل هنتهي حكمة قصة ما أنت لن وذاقي دونه واحد أحمرتي شخص مسلمة يا شخص كلام مسلمة هين أو ولا شاكستي قصة واحد كبلا وانا ساسدة شخصي أن مسلمة هين أي أقول شخص مسلمة وحنا وديه maxaysan u banaaneen ama diinta islaam diintiin islaamka aysan u qabin in dumarku iyo rag ay gacanta iska salaamaan shakhsiga muslimka wuxuu ku jawaabay uu tusaalana u soo qaatay una weydiiyey boqorada ama queens wax loo yaqaan wadamada ku dhaqma boqortooyada ayuu wuxuu yiri naagta queenka ama qofka queenka ee wadankaas maamulo gacanta ma ka salaami kartaa ayuu yiri ninkii aan muslimka ahayn shakhsiga ayaa wuxuu yiri ma kama salaami karo waxaana loogu talagalay dad khaas ah inay gacanta ka salaamaan naagta boqorada ninkii muslimka ayaa wuxuu yiri hablaheenu waa wada boqor nin kastana gacanta kama salaamo dad u gaaraya gacanta ka salaamo oo uu kala jeedo dadka loo baneeyay inay gacanta ka salaamaan dumarka shakhsigii aan muslimka ahayn ayaa su'aal kala weydiiyey ninkii muslimka ah wuxuuna ku yiri maxay hablihiinu ama dumarkiinu muslimka ay jirkooda iyo madaxoodaba u dawoolaan ninkii muslimka ahaa ayaa ka jawaabay asagoo qoslaya ayuu wuxuu yiri wuxuu soo qaatay laba ninac oo midna bacdu ka fiiqay midna bacdiisu ku jiro ayuu laba gacan inta ku qabtay dhulka ku tuuray wuxuu ku yiri ninkii gaalka ahaa aan muslimka ahayn labada ninac mid door haddaan ku midkaad qaadanaysaa ayuu yiri wuxuu yiri dabcan waxaan qaadanayaa midka daboolan ninkii muslimka ayaa weydiiyey wuxuu yiri maxaad u qaadatay kan daboolan wuxuu yiri kan daboolan waa mid asturan aan weli wasakh gaarin laakiin midkaas qaabana dhulka ku turtay isla markii wasakhdi garaafadii ay gaartay mid soo ma cuni kara ayuu yiri marka waxaan dooran lahaa midka daboolan ninkii muslimka ayaa yiri hableenu tabtaas ayaan u aragnaa aan ula dhaqannaa ayuu yiri shakhsigii gaalka ahaa aan muslimka ahayn ayaa haddana su'aal kale weydiiyey ninkii muslimka ah wuxuuna ku yiri waxaad aaminsantiin inuu ilaahay jiro ilaahay i tusayuu yiri shakhsiga muslimka ahaa intuu cirka fiiriyey oo fartana ku fiiqay qorraxda ayuu ninkii gaalka ahaa u tilmaamay inuu fiiriyo qorraxda ninkii gaalka ahaa ayaa qorraxda intuu fiiriyey ka soo jeestay wuxuu yidhi ma fiirin karo waayo qorraxda iftiinkeedu waa saa'id nuurka indhahayga ayay wax u dhibaysaa mana fiirin karo ninkii muslimka ayaa wuxuu ku yidhi qorraxdaas u dhidid waa makhluuq uu khaaliqa abuuray khaaliqa wuxuu abuuray haddaad arki karin sidee khaaliqii abuuray aad ku doonaysaa inaad aragtid ama aad u awoodaa inaad aragtid ninkii gaalka waa yaabay kadib wuxuu go'aansaday ninkii gaalka ahaa inuu ninkan muslimka ah uu gurigiisa ku casuumo ninkii muslimka uu ka ogolaaday gurigiisa ayuu u raacay wuxuu u keenay grapes wax la yidhaahdo ama canabka la cuno ninkii muslimka uu ka qaatay wuu cunay kadib ninkii gaalka ah wuxuu haddana u keenay koob ay khamri ku jirto uu u soo shubay ninkii muslimka ah ninkii muslimka wuu iska diiday muusan cabin ninkii gaalka ah soo booday wuxuu yidhi sidee ku dhacday inaad canabkana cuntaan khamrigana diidaan iyadoo khamriga laga sameeyey canabka ninkii muslimka ah ayaa wuxuu ku yidhi ninkii gaalka ah gabar ma ku joogtaa oo ma dhashay oo gabar ma leedahay ninkii gaalka ah gabadhiisa halkaas fadhida ku fiiqay wuxuu yidhi haa inantaas baa ii joogto ninkii muslimka ah wuxuu ku yidhi gabadhaada ma guursan kartaa ninkii gaalka ah yidhi may sidaan u guursada aniga ayaa dhalay waaba gabadhaydii ninkii muslimka ah wuxuu yidhi subxaan allah hooyadeed waad guursatuu yidhi hooyada dhashay waad guursatay cunugtii dhashay caloosheeda ka soo baxdayna ma guursan kartid sidee ku dhacday ayuu yidhi ninkii gaalkaha jawaabtii doonaya wuu helay marka haddaba maxay tahay ujeeddada qisadan maanta idinkula wadaagayo ogow mar kastana ku shugri allahi kaa dhigay muslim waxaad haysataa diinta dunida ugu macaan diinta dunida keliya ka jirta diinta keliya cadaabta ilaahi subxaana wa tacaala looga badbaadi karo mar kastana ha iloobin inaa ilaahay ku shugriso nimcadan iyo raxmaddan ee uu islaamka kaa dhigay ee ilaahi subxaana wa tacaala ku soo hanuuniyey haddaba muuqaalkan iyo qisadani haddii ku cajabgelisay la wadaag walaalahaaga si ayagana u daawadaan oo walaalkiin salmaan min shaabi oo idin leh be proud to be a muslim wassalaamu calaykum